abkii waa uu soo degay, waan rakibtay. Dukaal sumadan ayuu leeyahay, calaamadaasuu leeyahay. Isagaa taabanaysaa, isagaa ishabaynaya. Waxa uu ku weydiinayaa ugu horeeya waxa weeye mobile iyo pin number oo aad gelisid. Xogta kugu jirta si aad u kaydsato waxaad gelisaa mobile iyo pin number. Mobileku waa 10 god weeye, macnaha waa 10 number. Waxaa ku jirta shirkadda furaheeda ku jira, oo masalan Somtel oo kale hadda qaybo ka mid ah waxaa la isticmaalaa eber 66. meelaha qaar waa laga yaabaa eber 62. shirkadaha qaar waxay isticmaalaan eber 61. shirkadaha qaarna eber 63 bay meelaha qaar laga isticmaalaa. shirkadda Golis oo kale waxay isticmaashaa masalan eber 9 eber. marka macal furaha ayaad ku daraysaa. furaha waa inaad raacisaa. pin numberkana waa ugu yaraan 4 iyo wixii ka badan, laakiin 4 number waad ku ekaysan karaysaa. waxaan ku bilaabayaa masalan eber 661 oo kale aan oranayaa. waxaad raacisaa masalan kaba soo qabo 1 2 3 4 5 6 7 8 7 annagu tusaale ahaan baan u samaynaynaa. pin numberkana waxaad iska tiraahdaa 1 2 3 4. marka intaa samaysid wuxuu ku oranayaa kaydi baad leedahay. waxaa kuu soo baxaysa digniintan, arrintana kuu soo baxaysa. tan macnaha waxay ku tusaysaa xusuusnow qoraalkan aad samaysay oo pin numberka iyo mobile numberka aad gelisay. had iyo jeer marka aad wax kaydinaysid ama marka aad soo dejinaysid, si ayna u dhicin in qof si khalad ah kaydkaagii uu kayd kale oo khaldan ka daba mariyo, ama kaydkaagii si khalad ah qof kale uu u soo ceshado adoon macnaha u fasixin, xogtaadii uusan u helin. had iyo jeer waxaad ku kaydsataa pin iyo mobile number adiga kuu gaara. mobilekaas haddii ay shirkad tahay waa dhici kartaa, hadday kaaga tahay way dhici kartaa, haddii qof kale aad garanaysid ay tahay way dhici kartaa. waxay rabtaa ha ahaato. waxa marka halka lagu leeyahay haddii aad intaa ku qanacday sheekadaas, waad sii wadi karaysaa oo waa garatay, ama waad joojin karaysaa hadba sida aad rabtid. taas marka aad samaysid